بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دوادا ورarka bariga Afrika oo aan ka soo tabino stuudiyaha Kalsan TV ku leeyahay magaalada Nairobi warkana waxa idila socodsiinaysaa anigoo Igla Saalax wararka ugu dambeeyay aan idinka hayno bariga Afrikana waxa kamid ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya Raila Odinga ayaa shaaciyay inuu toddobaadka soo socdo booqan doono qaar kamid ah gobolada dalka hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Raila Odinga ayaa la filayaa inuu toddobaadka soo socdo booqan doono qaar kamid ah gobolada dalka oo ay kamid yihiin gobolka Rift Valley. Mr Odinga ayaa lagu wadaa inuu gaaro countiga Kericho isagoo damacsan inuu halkaasi kaga jawaabo isu soo bax ducada qaranka ay siyaasiyiinta xisbiga talada haya ee Jubilee u sameyn doonaan madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto. booqashada Raila Odinga uu ku tagayo goboladaasi ayaa ah faa'iido weyn maadaama uu haatan ka helay taageero buuxda intii ka dambeysay doorashadii 2007 uu ku waayay siyaasiyiin fara badan oo ay isku xulufo ahaayeen. arrintan ayaa xiisad weyn ka dhex abuurtay xisbiga mucaaradka iyo xisbiga talada haya taasi oo ku doonayo inuu ugu ololeeyo si ay xisbigiisu ugu soo baxo doorashada 2017 ee soo socota. xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalkani Kenya ayaa booliska Kenya ku eedeeyay inay ugaarsadaan dhalinyarada muslimiinta ee dalkani Kenya. faahfaahinta warkaasina waxay noo eegayay wariyaheena Khadar Shaam. mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa is soo tariyay cabashooyin ka soo yeeraya qoysaska ay ka maqan yihiin dhalinyaro fara badan oo qaarkood laga cabsi qaba in la dilay. ayaa xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dalkani Kenya waxa uu mas'uuliyadda arintaasi tusha ugu tuuray ciidamada booliska. mudanaha laga soo doortay degmada bariga Sunna Joonad Mohamed ayaa ku dhaliilay dawladda in ay ka dambayso mushkiladaas oo lagu laayahay dhalinyaro muslimiin ah. Joonad Mohamed oo soo saaray war-saxaafadeed lagu shaaciyay jaraa'idka ka soo baxa dalka ayaa sheegay in fikirka xagjirnimada uu ku sii kordhayo hadii dhalinyarada si joogto ah loogu xiro tuhun ku aadan in ay xiriir la leeyihiin kooxaha argagixisada. sidoo kale xildhibaanka ayaa laamaha ammaanka ee dawladda ku eedeeyay in aysan marnaba soo bandhigin baaritaanada ay ku sameeyaan dhalinyarada loo xiray tuhunka argagixisnimo. Mr Mohamed ayaa haatan doonaya in xukuumadda ay soo saarto ilaa 10 dhalinyaro ah oo la waayay bilihii la soo dhaafay. dhalinyarada la laayahay oo uu xildhibaanka Carabaabay ayaa kala ah Caasha Cabdullaahi oo maqan ilaa bishii July ee sanadkan, Yaxya Cabdulqaadir Aadan, Cabdiraxmaan Maxamed Dhaqane, Jamaal Mukhtaar Cali, Cabdulqaadir Maxamed Wabi, Maxamed Cali Maxamed oo dhamaantood la laayahay tan iyo bishii Abriil, Umar Faarax Cadow, Cali Umar Xasan oo maqan tan iyo bishii May, iyo Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Daahir oo ahaa arday jaamacadeed oo isagana la laayahay bishii July. xildhibaanka ayaa hoosta ka xariiqay in dhalinyarada la laayahay ay tiro ahaan ka badan yihiin ilaa iyo 10 qof. Khadar Shaam, Kalsan TV, Nairobi. dalkaasi Ugandana waxa la sheegayaa inay 2 arday oo wax ka baran jiray jaamacad ku taala magaalada Tororo ee dalkaasi Uganda ay ku dhinteen sida la sheegayo cunto la sumeeyay. faahfaahinta warkaasina waxay noo eegayay wariyaheena Cabdulaahi Axmed. 2 arday ayaa geeriyootay, qaar kalena isbitaalka ayaa la seexiyay kadib markii ay cuneen cuno la sameeyay. ardaydan geeriyootay ayaa waxay wax ka baranayeen iskuulka sare oo lagu magacaabo Makuju Kore oo ku yaala degmada Tororo ee dalka Uganda. John Obore iyo Patrick Oworo oo ku geeriyooday isbitaalka Tororo ayaa waxaa sidoo kale isbitaalka la dhigay qaar ka mid ah ardaydii isku fasalka ahaayeen. maamulaha kuliyadda Mr Tino ayaa waxa uu sheegay in ardayda markii ay ku arkeen xanuunka loola cararay ka hor inta aysan geeriyoon isbitaalka bukaanka degdega kadibna laga saaray si loogu daaweeyo isbitaalka Tororo. kormeeraha caafimaadka ee isbitaalka Tororo Dr Tom Ochoro ayaa sheegay in labada arday xilligii la keenay ay ahaayeen kuwa caafimaadkoodu aad u liitay. sidoo kale taliyaha booliska degmada Robert Katuramu ayaa waxa uu sheegay in meydadka lagu sameyn doono baaritaan si loo ogaado sababta ka dambaysa dhimashada ardayda. degmada Tororo ayaa waxay ku taalaa bariga Uganda waxayna 210 kiiloomitir u jirtaa magaalada caasimadda ee Kampala. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani Kenya ayaa musuqmaasuqa dalka ka jira ku tilmaamay inay tahay masiibo qaran. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in loo baahan yahay in musuqmaasuqa ka jira dalka loo aqoonsado inuu yahay masiibo qaran.
aadan bare ducaale oo ka tirsan xildhibaanada degmada Gaarisa ayaa ka dhawaajeen musuqmaasuqu uu ragaadiyay dhammaan waxyaabaha kala duwan ee dhaqaalaha. waa tahay daawadayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa wararkaanu idinka hayna bariga Afrika oo idinka imanaya stuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi. warkana waxa idinla socodsiinaysaa anigoo Igla Saalax. intaynu ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida iyo amaana Allah.